xasan maxamed abuukar oo loo garan og yahay xasan kabooli waa dhibano Soomaaliyeed waxa uu ku xanuunsan yahay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana in muddo 9 sano la taacaya xanuun ka soo gaaray qeybaha hoose jirkiisa dhowr jeer ayaa la geeyay isbitaal ku yaala magaalada Jowhar wallow waxba looga qaban waayay walaalaha muxsiniinta caafimaad dunida ayuuna ka codsanayaa inay soo caawiyaan isla markaana codsigiisu ku dabaqay helista xarun caafimaad si loogu daaweeyo xanuunka uu la taacayo maanta alxamdulillah nin iska tabaracsanaan ahay nin xanuunsanaan ahay sanadkii maanta alxamdulillah oo 9 ii socdo intaasna maanta alxamdulillah meel kasta waa la geeyay oo daawooyin waa la igu sameeyay ilaa haddana alxamdulillah daawadii mid aan u baahanahay idinkan maanta tabaruc inaad igu sameeysiinara walaalahayga muslimiinta ahay waxaan jeclahay 104 caadadeeda aan igu salaamay mideeda kalena waxaan rabaa inaad gacanta wax iga qabataan oo maanta isoo caawataan oo daawo aad ii raadisaan intaasaan u baahanahay walaalahayga muslimiinta ahay idinkana waa nii codsaday oo maanta alxamdulillah dawladdan ka codsaday oo Hirshabeellaan ka codsaday oo walaalahayga muslimiinta meel meeshii ku nool yihiin ayaan ka codsaday inay wax igala qabtaan oo tabarucaad maanta wax igu soo tabarucaan aniga hanti adduunyaal u baahan laakiin caafimaad aan u baahanahay caafimaadkaysa igu soo dadaali lahaayeen ayaan u baahanahay aniga nin miskiin oo meel iska fadhiyaan ahay ilaahay aan u baahanahay oo maanta alxamdulillah muslimiinta aan u baahanahay waxaan u baahanahay maanta alxamdulillah wax kasto awood diin ah oo daawo sheegto ama daryeel kale sheegto inaad igu soo caawisiin aan u baahanahay oo maanta alxamdulillah reer Hirshabelle meel kasta ay meey joogaanba oo maanta alxamdulillah muslimiinta meel kasta ay joogaanba aan ka codsanayaa caafimaadkayga sida igu soo tabaruci lahaayeen marka laga yimaado in isbitaalka magaalada Jowhar waxba looga qaban waayay haddana waxaa jira isbitaallo ay joogaan dhakhaatiir ajaanib ah misna ku takhasusay xanuunadan aadanaha inta badan waxa ay joogaan dhakhaatiirtaasi isbitaallada ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya xasan maxamed abuukar awood uma laha inuu tago isbitaalladaasi si lagu soo daaweeyo xanuunkan hadda haya kulli maanta alxamdulillah nin iska tabaracsanaan ahay 9 sano meel iska fadhiyo oo ilaahay iskiga baryo hay daawo meel kasta waa leegay waa leegu tacaali laakiin waxa waaye daawati ilaahay waa idinka niga sugaa daawan idinka niga raba in wax igala qabatiin xamar Muqdisho maanta meel laga furiyaa liir meeshiina ma aqaan meel ay ku taalo ama si ay u taalo ma ogi mana aqaani maanta qarash oo maanta alxamdulillah aan ku bixi lahaay ama meel leegu geey lahaay tabar ma u hayo ma bahaystibo xasan maxamed abuukar shaqadiisu waxay ahaan jirtay kawaanle muddo 9 sano ayuuna ku xanuunsan yahay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe waana aaba dhalay 10 caruur ah qaar ka mid ah waxay dhigtaan dugsi Qur'aan wallow aabuhuna uusan bixi karin lacagii arbacada iyo bisha ee lagu dhiginayay dugsiga Qur'aanka Kariimka ee ku yaala magaalada Jowhar shaqadaydan ebel hor waxay ahaan jirtay kawaanliyay nin kawaan ku shaqaysana ahay kadibna waa iska soo fadhiistay oo meehab leega soo qaaday ha ahaato muxuu haddana alxamdulillah ilaahay dartiisa askiga noolahay walaalahayga meel kasta waa leegay waa igu dadaaleen laakiin ilaahay meel ii dhiman haddana idinka tiiniyaan sugo haya ilaahay wax ka sugaa idinka niga sugaa caafimaadkayna igu tabarucdiin anigoo xasan maxamed kabooli oo ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe magaalada Jowhar danida ruufeed ma ahan mid la isku naco waa dadaal adduunyo oo kaliya walaal caawi oo u gargaar aabahan Soomaaliyeed si adduunyo aakhiraba aad ugu liibaanto Saadax Al Ismaan dalka TV Jowhar.